kulanti waxaan daawadayaal halkaad naga daawanaysaan waa channelkeena Runmal Media alaba halkan waxa idinku soo gudbinaa xogihii u dambeeyay dhacdooyinka caalamka maantana waxaad ku daawan doontaan xaaladda bariga dhexe oo faraha ka sii baxday iyadoona maanta wixii ka dhacay ay ahaayeen hore wax loo sii daalinayay maadaama ee toddobaadadii la soo dhaafay fariimaha hanjabaadaha ee hawada la isku marinayay ay ahaayeen oo kuwa cirka isku sii shareeray Israa'iil ayaa subaxnimadii maanta waxay weerar ay ku qaaday Iran iyadoona weerarkeeda uu ahaa weerar gantaalo ah Iran ayaa dhankeeda weerarkaas oo ka jawaabayso waxa ay qaaday weerar oo gantaalo ah isla markaana ay u adeegsatay diyaaradaha nooca aan duuliyaha lahayn Mareykanka oo la sii saadaalinayay in weerarka ee lagu qaaday Iran uu ku lug lahaa ayaa iscadeeyay in weerarkaasi uu ka dambeeyay isagana isla markaana ujeedo gaar ah uu ka damacsanaa xogihii u dambeeyay ee idiin soo gudbin doona weerarada Iran waxay ka dhahday Israa'iil sidoo kale Mareykanka xogihii u dambeeyay ee idiin soo gudbin doona hadii ay tahay markii ugu horeysay uu ku soo gaaro muuqaalkeena fadlan subscribe inoo dhegan baleelka furso ay ku soo gaaraan muuqaalada kale xiga hadii aad subscribe inoo tahayna muuqaalka noo share garay like inoo saar soo gaar asxaab badan oo ku maadsantahay daawashadaada subaxnimadii hore ee Saakay ayaa Israa'iil weeraro gantaalo ah waxa ay la bartilmaameysatay Iran gaar ahaan caasimadda Tehran iyadoona gantaalo lagu qiyaasay ilaa 8 gantaal ay ku turtay gantaalada qaarkood ayaa wararku waxa ay sheegayaan inay ku dhaceen xafiisyo ka agdhawaa xafiisyada uu degan yahay amaba uu ka howlgalo Ayatollah Ali Khamenei isagoona wararka qaar hadda ay sheegayaan inuu ku sugan yahay goob amni ah isla markaana ee amnigiisa si aad ah ugu shaqeynayaan saraakiisha sarsare ee dalkaasi Iran gantaalo qaarkood ayaa waxa la soo warinayaa inay ku dhaceen wadada jaamacadaha ee Jamhuuriyadda loo yaqaan ee ku taala caasimadda Tehran waxaana sidoo kale ay gantaalo qaarkood ay ku dhaceen xafiisyo gudow halka uu deganaa Ayatollah Ali gantaalada Israa'iil ay ku weerartay Iran ayaa waxa la soo warinayaa in ay u ahaayeen goobo bartilmaameed u ahaa iyadoona ay rabeen inay ku dhacaan goobaha shidaalka ee saliidda iyo sidoo kale ee Iran wakaalada wararka ee Faris News Agency ayaa waxay sheegtay inay heshay xog hordhac ah oo tilmaamaysa in dhowr gantaal ay ku dhaceen aaga Jamhuuriyadda ee caasimadda waxaana la maqlay ugu yaraan gantaalo gaaraya ilaa 3 sida ay sheegtay wakaaladana wararka hordhaca ayaa waxay sidoo kale sheegayaan in gantaalo ay ku dhaceen aago muhiim ah Israa'iil ayaa weerarkan waxay ku tilmaantay inuu yahay weerarka hortaga kadib markii hanjabaado kala duwan ay labadii toddobaad ee la soo dhaafay Iran Israa'iil iyo Mareykanka ay hawada isku marinayeen oo kuwaas oo kamid ah wadamada bariga dhexe wasiirka difaaca ee Yahuudda ayaa bayaan uu soo saaray subaxnimadii hore ee maanta waxa uu ku sheegay in dalka lagu soo rogay xaalad degdeg ah gaar ahaan waxa ay sheegeen in weerarka uu yahay mid ka hortag ah si looga hortago hanjabaadaha ay ku eedeynayaan Iran iyadoo sidoo kale weerarkan uu ahaa mid la sii saadaalinayay maadaama hanjabaadaha labada dhinac ay hawada isku marinayeen ciidamada difaaca ee Israa'iil ayaa la geliyay heegan sare dadweynaha ayaa sidoo kale waxa loogu baaqay inay raacaan tilmaamaha amniga iyadoo laga baqayo in weerarka ama jawaabta ay celin karto Iran maadaama Iran ay tahay wadan aanan gambanin isla markaana weerarka si toos ah u qaado iyadoo la og yahay weerarkii sanad ka hor Iran ay qaaday qasaarihii uu sababay sidoo kale sida ay ula yaabeen wadamada Yahuudda isla markaana ay dalbaneen in Iran ay mar wada hadal ay la gasho weerarka Iran lagu soo qaaday ayaa wararka qaar waxay sheegayaan in ay qayb ay ka yihiin amaba ee laga soo qaaday wadamada Carabta iyagoo ka baqaya in weerarada Iran lagu qaado mid la mid ah iyaga lagu qaado sidaas darteedna ay garab ay ku siinayaan in raacaan amaba wadamadooda weerar looga soo qaado Iran Mareykanka ayaa waxa warar hore ee Saakidii hore soo baxayay lagu sii saadaalinayay in uu laga yaabo in uu ku lug leeyahay weerarka Iran lagu qaaday balse durbadiiba waxa soo baxay in madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump muuqaal uu kaga hadlayay ilaa 8 daqiiqo uu ku sheegay in weerarkaasi si toos ah ay ugu dambeeyeen Mareykanka isla markaana ay xulufo ay leeyihiin Israa'iil waxaana la og yahay in wada hadaladii dhaxmaray Iran Israa'iil sidoo kale Iran ee looga hadlayay
gantaalada uu fashil uu kusoo dhamaaday iyadoona la rabay in Iiraan lagu horjoogsado sameynta nuclear-ka balse Iiraan ay kasoo horjeesatay arrinkaasi. ujeedada dhabta ka dambeysa ayaa waxay ahayd in Iiraan cadaadis lagu saaro in hubkaasi ay joojiso balse Iiraan dhankeeda ay ka dhiga adeegtay oo hoosheeda horay u sii wadatay kadib weeraradan saaka Iiraan ay ku soo qaaday kadib weeraradan gantaalada ah Israa'iil saaka ula bartilmaameedsaday Dahraan waxa jawaab culus durbaba ka bixiyay Iiraan iyadoona adeegsatay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn sidoo kale gantaalo culus kuwaas oo ku dhacay magaalooyinka qaar oo ay haystaan Israa'iil sida xogaha nagu soo gaarayo. Dahraan ayaa ku dhawaaqday in gobolka oo dhan uu noqon doono xarun dagaal oo dagaalku wada gaari doono. Qatar ayaa ku dhawaaqday in gantaal ka yimid Iiraan ay ku qabteen in la burburiyay sidoo kalena Urdun ayay ku dhaceen gantaalo qaar oo Iiraan ka yimid sida ay wararku ay sheegayaan. Waxaa sidoo kale Xuutiyiinta ayaa ku dhawaaqay in ay badda Cas ay ka iloobeen maraakiibta USA iyo sidoo kale Tel Aviv. Iiraan ayaa qaaday weeraro xoog leh oo ay ku wajahayso Israa'iil uguna jawaabayso weerarkii bahalnimada aroornimadii hore saaka lagu qaaday waxayna garaacday meelo kala duwan oo Xayfa ka mid tahay sida ay muujinayaan muuqaalo hordhac ah oo lagu baahiyay baraha bulshada. saraakiisha Tel Aviv ayaa waxay sheegeen in ay la kulmeen weeraro xoogan oo ugu imaanaya Iiraan oo la og yahay sida ay ugu jawaabayso weerarada ugu imaanaya Israa'iil ayaa waxa ay sameeyaan weeraro aan loo meeldayanin iyadoona si isku mid ah gantaalada ugu garaacdo iyadoo argoosi sameynaysa maadaama wadamada qaarkood Carabta ay garab siinayaan Israa'iil iyagoona wadamadooda laga soo tuurayo gantaalo qaar si Iiraan loogu bartilmaameedsado. ila rasmi ah ayaa tilmaamaya in difaaca hawada Iiraan la howlgeliyay si ay ugu hortagaan weeraro ay ku tilmaameen gardaro Mareykanka. wararku ayaa waxay sidoo kale tilmaamayaan in difaacyada hawada la howlgeliyay meelo kala duwan oo dalka iyadoona ciidanka Iiraan ay sheegeen inay la tacaalayaan duqeymo iyo gantaalo meel fog laga soo tuuray. ilaa hadda ma jirto bayaan rasmi ah oo faahfaahin ka bixinaya weerarada ama khasaaraha ka dhashay balse xaaladdu ay tahay mid aad u kacsan. gantaalada Iiraan ayaa ku hoobanaya magaalooyinka Israa'iil haysato waxaana Tel Aviv ay sheegaysaa in ay qabatay qaarkood halka qaar kalena ay soo dhaafeen nidaamka difaaca ee gudaha waxaase ay ku dooday Israa'iil inay ku dhaceen goobo banaana. weerarada ku socda Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iiraan ayaa ku soo beegmaya hadda ilaha dhaqaale iyo sidoo kale kaabayaasha muhiimka ah dekedda magaalada Bandar Abbas ayaa la garaacay sidoo kale xarumo shidaal iyo sidoo kale gaaska ee koonfurta Iiraan ayaa la duqeeyay. tani waxay muujinaysaa weerarka baaxadda uu leeyahay. dhanka kale qaraxyo xoogan ayaa laga soo sheegayaa deegaanada waqooyiga ee Israa'iil kuwaasi oo la saadaalinayo in si toos ah ay ku jawaab celinayso Iiraan maadaama Mareykanka uu qirtay in uu isagu ka dambeeyay weerarkii gantaalada ee Iiraan ay saaka ay ku qaadeen Iiraan gaar ahaan caasimada Dahraan. waxaana la sheegayaa in xaaladda bariga dhexe xilligan ay noqon doonto mid waji cusub abuureysa siyaasadana ay wax badan isku khilaafsan yihiin. waxaa sidoo kale Mareykanka goor horeba uu bilaabay in ciidankiisii Mareykanka iyo sidoo kale shacabkiisaba uu ka bixiyay wadamada bariga Afrika wadamada bariga dhexe taasoo u muuqatay in Mareykanka uu wax maleegayay isla markaana uu qorsheynayay dagaal toos ah oo ka dhaca bariga dhexe maadaama uu sheegay in lagu fashilmay wada hadaladii la doonayay in lagu dhaxgalo. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa si cad ah waxa uu u sheegay in dhowr mar uu isku dayay in uu wada hadal iyo nabadeyn u dhaxdhigo Israa'iil iyo sidoo kale Iiraan balse arrimahaas oo dhan lagu guuleystay kadibna uu sheegay inuu qaaday tallaabo ka dhan ah Iiraan isla markaana weerarka gantaalada in laga bartilmaameedsado uu ka dambeeyay Mareykanka. Iiraan ayaa sidoo kale iyaduna ku hanjabtay in marnaba ay meel ay fadhiisan dooneen ilaa ay weeraradaasi ay ka jawaabto iyadoona durba ay bilowday in gantaalo ay ku garaacdo qaybo ka mid ah dhulka ay haystaan Israa'iil iyadoona sidoo kale 8 diyaaradood kuwa aan duuliyaha lahayn ee loogu talagalay dagaalka ay durba hawada ay geliyeen iyadoona xaaladda bariga dhexe markaan ay tahay mid faraha ka sii baxday isla markaana cirka isku sii shareerayso saacadba saacada ka dambeysana la filan karo in halkaasi dagaal hor leh uu ka qarxo.
maadaama Israa'iil saaka ay bilowday in weerar gaadmo ah ay ku qaado Iran iyadoo toddobaadyadii la soo dhaafay fariimaha jawaadaha ee habada la isku marinayeen ay ahaayeen kuwa si aad ah u culus isla markaana laga dareemi karay inuu dagaal uu ka qarxi rabo bariga dhexe. guud ahaan daawadayaal xogihii u dambeeyay ee bariga dhexe halkan ayaan kusoo gabagabeynayna wixii xogay kusoo kordhin muuqaaladeena xiga ayaa idinkugu soo gudbin doonaa haddii ay tahay markii ugu horeysay uu kusoo gaaro muuqaalkeenana subscribe inoo dhigan baleelkana furas ay kusoo gaara muuqaalada kale xiga haddii subscribe inoo tahayna muuqaalkan oo share garay laakiin oo saar si oo gaar asxaab badan aad ku maasantahay daawashadaada.